waxaan ahay dhalinyarada reer Muqdisho maxaa yeelay 7 saac meeshaan maray qaraxan ku dhacay laakiin si aad ugu xumo wallahi maxaa yeelay xasuusayda igu tahay soobe 14 October طبعا hortaalo wax weyn ay soo kordhinaysan hadda ma arko maamulku wax badan ayaa loogu baahan yahay wadanka amnigiisa in la soo loo baahan yahay hadda taalo meel surad wax soo kordhinaysa ma arko laakiin taalada waxay noqonaysaa oo meel xasuuso oo meel 14 sidii taalada Israel amal 14 October meel wax ka dhaceen si jiilka dambe u xasuustan ay noqon doontaa magacaygu waa Aisha Khaliif Xasan taalada u jeedid taalo waxa waaye tiiraanyo dheer iyo murugo ku reebtay ummadda Soomaaliyeed oo ilaa hadda ay ka kabsalaayeen runtii 14 October waxaan hilmaami karaa hadaan ummadda Soomaaliyeed ee noqotay maalin murugo badan ka oysiisa dad tiro badan waalidiin arday noloshooda ay ku waayeen oo ilaa hadda ka soo kabsalaanahay bismillaah magacaygu waa Maxamayaal Cabdulle ardayda ka barato gobolka Banaadir jaamacad maanta waxaan xusi doonaa 14 October oo maalin weyn ugu ah in la xusuusnaado mudnaado oo arday badan ku dhimatay iyo maamooyin iyo aabayaal waxa maanta si aad u xusneynaa taaladan ee maamul gobolka Banaadir oo noo taagay magacaygu waa Ramlo waxaan ardayda ka dhigtay gobolka Banaadir jaamacad especially jaamacadda Banaadir dhigtaa maxaa la dhahay maanta oo kala daasa xasuusta maalin aad u murugo badan ay dhamaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba joogan maalin aad u murugo badan ay because dad badan dhamaan meeshaan oo arday hab u badnaadaan oo xitaa niyad jab nagu dhacay dhamaan hadaan ardayda aantii saameynta halkan ugu leedahay dhacdadii 14 October 2017 maalin Sabti ah dabcan galabnimada ay tahay galab Sabti ah taariikhduna ay ku beeneen 17 October 2017 dhacdadaas lama soo koobi karo runtii xanuun aad u saameyn badan ay ku yeelatay bulshada dhammaan inta magaca Soomaaliya ee wadato runtii waxaan qayb ka ahay aniga kayxya ahaan dabcan dadkii ay dhacdadaas saameynta aad u xooggan badan ku yeelanay meelaan inta ka fogeyn ayaan xisaan ku qaadanayay jaamacadda Soomaaliya runtii maqalka iyo gugaca qaraxa saameyntiisa runtii saameyn aad u xooggan ay noqon dad baa mental problem ku dhacay dad baa dabcan lafahooda ku barbaray lama soo koobi karo runtii saameynta ugu yeelatay ka bulshada waa Maxamed Caldiiri oo kamid ah ardayda ku nool Muqdisho qaasatan ana ahaan hota meeshaan markii qarax ka dhacay waxay ka hor xiisad meesha jaamacadda ka imaaday mar aan gudbo hoos bulxeedan digna mar hoos soo gudbay oo qarax dhacay alxamdulillah aad u faraxsanahay ilaa waan badbaashay bas waxa nasoo xumay inuu qarax dhaco uu noqdo qarax weyn Afrika dhaca qasaaraha uu badan yeeshay waxaan aad ilaahu u baryaa inuu janno firdaws ka waraabo dadku inta hada taaladan waa wanaagsan taala in loo soo taariikh xasuus loo soo biyo bas fikrad ahaan aan saamsana taala in laga bedelo aamsana oo laga dhigo shub dhagax oo taalo weyn oo marka saxsan maxay lahayd taala sinoo muqto jingad haddii maanta aan u daawo dumi kartaa waxa ku dhici kara shil dhici karo taala khasaare geysan kartaa dhib keen kartaa أنا هان دودع كلتا أنا كريت تعالوا كيا يا حطولي أسوأ تعالوا وين أنا ماشي كريت تعالوا وين كريستو أو واحد أو خسارة أو ضد كسر كحسوستان تم واحد عكروا الشيل بعد باورة دخول عكروا دوم كتاب magacaygu waa Nasr Daahir waxaan ku noolay magaalada Muqdisho qarxi sabab ilaa had waa hilmaami lahayn 14 October maalin murugo badan maalintii madoobaydo meedku daadsanaa imisa caruuro waayayaabhood xasuuqiiso bawali waan hilmaamilay imisa caruuro waayayaabhood imisa caruuro waayayooyadood imisa hooya gablaantood go'aad badeen شعب مساكين روحي قماديو الدنيا دوايا هميل جوغي ما آخري حساب تاهلا مداسو هدوا دركت البهاد بهاويال انتي ديمتانا نحارستي جنات ربي يا سياسة الرحمن انت سانكسو